mid ka soo gaarayo ama aan idhaahdo maqalkayga iyo muuqaalkayga mid ka soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamij kooban oo dhinaca suugaanta oo aan dabcan ku eegi doono bal hal abuurka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah jiilka cusub hadda iyadoo noognahay suugaanta Soomaalidu ay marba ehelkeeda leedahay oo marxaladaha kala duwan iyo taariikhaha kala duwan soo martay mar walba ay ehelkeeda iyo dad u darban markaasi ay leedahay halka waxaan soo gudbinaynaa mid ka mid ah hal abuurka dhalinyarada ah ee Soomaaliland oo isaga aynu eegi doono curintiisa suugaaneed iyo waliba qaybaha ay ka kooban tahay Cabdiraxiin Maxamed Ismaaciil oo lagu naanayso Suldaan Murtile ayaan dabcan waraysi halkan ku yeelan doonaa ee ku soo dhawaada wadawa shacab aad baad mahadsantiin saad ii soo dhaweyseen wardika mahad celinaya magacaygu Cabdiraxiin Maxamed Ismaaciil Suldaan Murtile ku magac dheer ku dhashay Garissa magaalada laakiin xaggan uma ku barbaaray la yaraantay lix jirkaygii laayman suugaan badan baad tustay ama aynu wadaageentii aad xiriirnay balka waran suugaanta hadma ku curatay ama ku bilaabantay curinta suugaanta adugu muddo ku siman ilaa 10 sano ma tirinay inta badan dadku waxay yiraahdaan suugaanta waayaa keena ama waqtiga keena ama wax keena muhiim ayaa loo adigu xaq u leeyahay suugaantaydu kulay suugaantu way iska noocyo badan oo way jirtaa hibakaanta iyo hidakaanta iyo garanaysa iyo taydu laakiin waxaan saadaa marmarka qaar waa hiddi raac baan oran karaa xagga qoyska ka soo jeedo way tirin jireen kulay hibana way jirtaayo wata aan tirinayaba hadda xilli waxa jirtay maasaa tirisayo hooyo la yiraahdo maasadaasi iyo xilliga tirisay iyo waxyaabihii ku dhaliyay iyo taariikhda inta loo sharaxo iyadana loo sidaa maasada hooyo waa maaso dareen iyo jacaylba ma garanaysaa iga keenay kulay in badan ba abwaanada Soomaaliyeed ay soo tiriyeen maaso ama gabayo hooyana waa shayga ugu qaalisan dunidan aad arkaysaba hooyo la'aan cidima ma noolaataba ma baynaan jirneen haddaanay hooyo jirin maasada hooyo waxay dhalatay waxaan tiriyay 2019 horaantiisii waxaan u hibeeyay maamaday Saada Cabdiraxmaan Faarax iyo dhammaan hooyooyinka oo dhan waan jecelahay aad baan u jecelahay maamooyinka Allah hadaayo maasada waxay odhanaysaa erayadeedii waxa kamid ahaa maasada horta magaceeda hooyo la yiraahdo waxay odhanaysaa hooyay adduunyadu harka labada gelin iyo habeen iyo dharaar iyo hayaan weeyegeediya ayaama hirdamayiyo waqtiga had iyo jeer kolba taagan heero nolosha is hareertaal adiguna huqiya daal hooyay hamudanoo ifka hiba ku noolow hilbihii jirkaygay wadnaa dhiiga horeeyay halbowlaha wareejaad kula daahad iyo jeer haku dhowro weynuhu intaad hooyo nooshahay hodan noqo adduunyada nimcaduna ku hoostaal hoodalay arlada joog aakhira halkii roon hadhaci fardowsaad hooy eebba kaa geli helid iyo nasiibkana rabbi hadiyad ku sii qof baa tahay hubaashii igu korisay hagarli garaad iyo hubsiimo leh xilligan hadaaqiyo hadalladii dhallaannimo hooyo lagu bilaabiyo hooyo sabi ahaantii ilaa heerkanaan jiro hawraar ammaan huwan hanad iyo haldoor iyo halkaraan nin geesiya haliyay iigu yeedho maxaad hoobalaydiyo heesaha macaankaa barya igu habayso adigoo haraad qaba ishaleeli weydood himir igu sabaysi habeenkoo barkii tegay hooyo seexan weydo adiguna anigoo hurdada laday adiguna hubaashii hor alle xaqiiqdii dartay uga hilowdood ii heelanaydood hadba dhinacyadayda iyo hareerteeda eegtood isku hawshay awgay hooyay waxaa tahay halbowlaha jidhkaygii hanaqayga beerkee ilaahay hadbaa siiya hanfi iyo kulayliyo hagardaamo kuma bado aamiin
hooyoy ha dheeraan hoqiyo ciil ha eersanin cadowyow ku heetayn hareertaada yuu marin halowyuu ku soo odhan hareertaada guuluhu garabkaa u hiil noqoy hantaaqyay ku soo marin ducahaysa weligaa hoygaad ku nooshahay nacab kuma haleero horor kuma soo dhaco ruux kastoo hab qaadaba adiga hagaayo una hayo hoggaanka ugu tala hagaagsane hanka ruuxa kaabaay himilada naftaydaay hiigsiga garaadkaay horseedkii libtaydaay hibar rabbi ilhaamiyo hadi eebba bixiyaay waxaa tahay hubaashii hantidayda guudiyo halbeegayga noloshoo la hilmaami karinoo waxaa tahay hirdoogliyo hadhacan agtiisana geedkaan harhkiisii hadhsadoon ku noolahay hurimadii afkaygana adaa hooya buuxshee hooya dhaayahaygana hogashoo da'aysiiyo hillaac baad u tahay hooyo way ku eegtaan hayiin baad u tahayoo haybaddii naftayduna hubaal adiga weeyaan maasadu intaasay naga dha waa maase aad u xigmad badan dabcan oo xambaarsan wax badan oo ay hooyadu leedahay oo ilaahay ku ilhaameeyey amase ilaahay awood siiyey waxaa ku jira erayo kala duwan oo malaha fahamkeena kala duwan kolley waxaa jira geedka himirta laga aankaabooga himir waxaad uga jeedaa geedkaasi waa geed ku yaalla sanaag uu ka baxaa oo geed macaan dee la jecel yahay midhuu bixiyaa aad iyo aad waqteedu waxaas weydiiyey nin dhalinyaraan wey geedka himirtuna waa geed inta badan aan dhulka ka bixin marka saasas weydiiyey waa maase aad u qiimo badan maasadan waxaa dareemo mataqaanaa oo keliya dadka aan hooyooyinka lahayn dad badan waxay odhan karaan hooyaday badan baa loo gebiyey waa loo heesay maxay kaga duwan tahay maasadan cabdilxiin tiriyey maasooyinka kale hooyadu dee kolley dareenka adiga ku lama aniga dareenkan igu lama waa hooyo jacaylon waxaan odhan karaa hooyadayo dee 2 jeer waalidii noqoto kolna aabbe iyo hooyaba ii noqotay dee kaalintii aabbiye iyada ayay buuxisay aabbahayaanoo aad u yar buu dhintay moogta allah yarxam raxiimiin deetana kaalintii baan markaa taa lafteeda maxaad ka tirisay dhinaca wadaniyadda iyo inta badan dadku waa iska caadi dhalinyaradu ay ka gaabiyaan wadaniyadda iyo arrimahaas ka wareega dhaqankaas iyada qudheeda waan tiriyo wadanku horta wadanka innagaa iskala dee maansidan waxaa la idhaha tacliin waxaan sameeyey waqtigii aan ku jiray shaqo qaran oo aan ku dhiiri gelinaya dhallinyarada waayo wadanku dhallinyaro ayuu wax ku yahay adduunka dee adduun weynaha innaga malaa dee dhallinyaradeenna waa la reebaaye caalamka dee dhallinyara wax bedesha iminka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waqtigiisii haddaynu eegno isagu kudayashuu inaga mudan yahay 17 jiraa loo dhiibi jiray dee hoggaan ciidamo dhan hoggaamin jiray sidaa darteed anoo dhiiri gelinaya dhallinyaradan oo le wadanku idinku wax idinku yahay ayaabaan tiriyey tacliin waxay odhanaysaa arday yahay tacliinsada heerka dunida tamaniya tacabkiin ha muuqdee cilmigana tibaax iyo tartangeliya maanko ku tiraaba gobonimo tooraheed halkuu yahay qaata taashka noloshiyo tiigsadoo weliba hela haddaan tuducyo suugaana ku cabiro tilmaamtayda haddaan taariikhda guunka markaan teebka aan baadho murtiday tidhi haddaan sheego haddaan tabashadeenniyo dhiirigelinta toolmooni hadduu tabinin maankeennu tidcantiyo odhaahdayda tixaad duluc ku soo koobo shinnidaba tacabkeeda aadmi baa ka dheeftaabta malab iyo tilmaanta hoosan taasaar mas-uulkeeda boqorkay ku taantahay kala tega la'aantiisa idinkuna tabteed raaca arday yahay tacliintiinna ku taageera qarankiinna hankiinnuna ha toosnaado yuu tacab khasaaroobin qaran idinku taamaya intaad taran ku sii reebto tallaal maangal aad beerto waa tamarsan doontaane wuxuu tamani yoolkaagu tallaabooyin hanaqaada bulshadu ku taariikha intaas ku dhanta waa afariyo gaabaro aynu ka sii socno xagga jacaylka malahayga dhalinyarada ay ka gaabiyaan ama ka heesaan ama ka naasooda bal iyadana maxaa jiray jacayladu waa badan yihiin waxaan idiin soo qaadan doonaa maanso laydhaa mudan
ya ninaan saaxiibnay waxaan tiriyey 17kii baan tiriyey sababtuna waxay ahayd ninaan saaxiibnay iyo jacaylkiisii oo sir qabtay aan dhexdhexaadinayo dabeetana waxaan odhanaysaa markaan eega xaajada maskaxdiiyo garaadkiiyo maankayga kaashado aan curiyo maansada miimkeeda aan dayo dawgeeda mariyoon micnihiiyo ujeeddada murti aan ku koobay maqaloo tixdaydani ilaah igu manaystiyo maaxdayda aan gudhin aan kuuba maalee waxay mudantu leedahay dhugoo talada meele geesna yaanay kaa marin inantaasi maandhow marwo aad ku sheegtay gobonnimada maashee ku manaysta weynuhu may rabin khilaaf iyo hadal maanku diidee may rabin iswaagiyo inay mudato ciilkee cadhadaada may rabin mar inaad ku joogtay farxaddaada maandhow mabsuud inaad ahaatay ku mashquulsanayde afkanaa maruu yidhi erayadaa maroore milgahaaga dhowre kuugu meeriskoysee waayaheedii may rabin dibimilicsigoodii waxay lahaydba maydho maruu dhaafi ruuxdoo ayaamii maroorsamay nasiibkeedii maaxdume waaye mahadhadoodii xasuusteeda murugiyo dharaarii madooba inaad maya tidhaahdana qalbigeedu muu rabin maamuus jacayl iyo xishood bay la maagtee maxay kugu samaysaa waan aqaanaa gabay geeraar maanso guurow jiifto intaba وهاجاك دعوة يرنت سجن كسوق بجبرنا برامج كان لنا عسوقان تاء يعني كورة سنة أبوان كان أبور كان عريها داضير عبد الحين محمد إسماعيل والسودان المترال قلنا رئيسه تاني اسم قرار التنبأ وبهذا ضوء ميديا ولنا عبد القادس وأما توبسته ولها خضر أحمد حاشي أنا كو سلمان عبد العالية نبت قريب